degmada Feerfeer gobolka Shabeelle dowladda deegaanka Soomaalida annaga oo soo gaaray bulshada gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeelle hay'adna yacnaha dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab taas oo aan muujinayno garab taagnida aan garab taaganahay bulshada howlgalka ku jirto sida xun cadownimada arxan darrada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee al-shabaab taas oo aan ka danqannay aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan raashin shidaal iyo ambalaasyo ay ka howlgalaan oo ujeeddadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee lagula jiro ay kula jiraan bulshada Hirshabeelle bulshada Hiiraan gobolka maamulka Hirshabeelle iyo maamulkoodaba waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koobaad ee aan bixinno ma aha kii labaad mana noqonayo kii u dambeeyey hadduu alla idmo inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada waan garab taagnaanaynaa taageeraha annagana mar walba waan u muujinaynaa hadduu alla idmo raashinka wuxuu isugu jiraa bariis sokor saliid iyo shidaal waxaa intaa dheer saanada ciidanka iyadana aan bixinay aan doonayno yacnaha in lagula diriro argagixisada al-shabaab dhiigga bulshada meeranaysa jidka u gelaysa dhibaateynaysa yacnaha bulshadu maadaama ay yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan iyo derisnimaba aan wadaagno in yacnaha walaalahaano aan garab taagannahay wixii dhibana waxna dhiba uu yahay wixii dheefiyana waxna dheefiya uu yahay aanan la dhimanayno hadduu alla idmo marka arrintaasaan yaan u nimid Feerfeer waxaanan maamulkii gobolka mudane Cali Jeyte iyo bulshadii howlgalka ku jirtay aan ku wareejinay alaabta maanta aan keennay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte Cusmaan ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay la dagaalanka al-shabaab iyo weliba iskaashiga amniga iyadoo muhiimadda koowaad ay tahay ka shaqaynta horumarka iyo weliba xasiloonida gobolka waxaa agab kaalmo ah oo isugu jira mid looga jawaabayo xaaladaha bini'aadanimo ee raashin ah iyo kaalmo ciidanba nagu wareejiyey dowlad deegaanka Soomaalida madax ka socota ee hoggaan xigeenka amniga iyo ay horkacayaan gudoomiyaha gobolka Shabeelle ayaa nagu wareejiyey waana arkaysaanoo dee waa kuwanba halkan safan waxaana laga taageeray howlgallada aan ku jirnay ee aan kula jirnay al-shabaab ma aha inaan qabaa'il Soomaaliyeed ku duulayno ma aha inaan maxay wax kale lagu qabanayo ma aha waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay horena beri hore aan uga wada hadalnay al-shabaab sidii looga saari lahaa waddanka iskaashi ciidan iyo mid bini'aadanimo iyo mid Soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaas sidii looga sifay lahaa dalka kaasoo noqday arxan laaway aan cid u aabba yeela aysan jirin waxaan laga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno al-shabaab dhowrkii bilood la soo dhaafo sidaan u dhammaystir lahayn baana laga caawinayay nalagana kaalmeeyey waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida madaxdiisa sare iyo kuwa nala joogaba waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa ciidamada ka howlgala halka dowlad deegaanku leeyahay police waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed dowlad deegaanka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka socda howlgallo kala duwan oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyadoo deegaano fara badan oo ka tirsan gobolkan Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab dad badan looga dilay Ibraahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne